madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhow soo gaaray magaalada Ankara. madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ka qayb galayaan caleema saarka madaxweynaha dowladda Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan. dowladda Soomaaliyana iyo madaxweynaheedana waxay halkan u yimaadeen inay ka qayb qaataan waaga cusub ee u bariyay walaalaheena reer Turkiya. waxaan rajaynaynaa insha Allah xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiya inuu isagana waa cusub u bariyi doono intuu heerku hadda taagan yahay inuu ka sii xoogaysan doono shacabka iyo dowladda Soomaaliya anagoo matalayna inaan la qaybsano farxadda iyo reynreynta iyo guushii natiijada ka soo baxday oo aan rajaynayno inay abuurto jawi aan ku sii dardargelinayno xiriirka ka dhaxeeya labada dowladood.